waxa meesha loo ham iyo dileeyahayna waa sidii dalka Soomaaliya dekadihiisana Jabal Cali loogu ilaalin lahaa danaha Imaaraadka khayraadka yaalla ee mineralski waxyaalahaasna loo boobi lahaa horta Siciid Dani iyo waxa ay isu daba socdaan Axmed Madow waa inta marka waxaan leeyahay dawladda federaalka ee hadda jirtana kalsoonida shacabkay ku waayaysa ixtiraamka ay ixtiraamayso labada qof waxaan leeyahay hadii maanta Siciid Dani iyo Axmed Madow gudaha la dhigo la xidho dawladnimaduna cirka yaadaysa shacabka Puntlandna banaanbaxyo waaweyn oo ay arinta ku taageersan yihiin bay dhigayaan annaga aan Puntland ahayna waxaanu arkaynaa dawladnimadii inay hagaagayso sabab nimankan dharka iyo ka sheekeynaya hadda aad arkayso hebel dharkii buu soo bedeshay ka sheekeynaya ee garasho halka ka marayso ee kalsooni darro leh Soomaali wax la cuni mayno waa baqayna ee kimis garow waxa la iga soo sameeyay war dadka noocaas inay Soomaali ku dhex jiraan waa khalad بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan maanta soo booqday xafiiska warbaahinta caanka ah ee Kalshaale Channel waxaan u mahad celinayaa wariyaasha fursadan siiyay in aan maanta tilmaan kaga bixiyo waxa wacyiga Soomaalidu taagan yahay ama ay muhiim u tahay bulshada Soomaaliyeed in isku aragti laga noqdo ama lagu baraarugsanaado si gaarana aan tilmaan uga bixiyo deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn oo aan afkooda ku hadlayo muddooyinkii ugu dambeysay dalka taladiisa in la soo aruuriyo ama dawladnimo ay hana qaadoona lagu jirayna aan xilal kala duwan ka soo qabtay waxaan rabaa maanta in bulshadan Soomaaliyeed halkan uga iftiimiyay magaaladan ka hadlayo Buuhoodle waa magaalo kamida magaalooyinka Soomaaliya ma aha meel ay xukunto maamulka Somaliland leeyahay mana aha meel laga xukumo maamul Puntland leeyahay waa dad iskooda u nool oo tashaday oo xataa hadduu maamulkii hore khaatimo ciiray oo meesha ka baxay u taagan midnimada Soomaaliyeed iyo in ay qaran Soomaaliyeed saa kaga mid noqdaan dadaalo danahooda qabsaday waxaan rabaa marka dadka noocaas ah ama bulshada gobolka Sool ku dar ama Taylaa Sanaag degan ku dar oo dad iskuna hayba isku dan ah baa degan ilaa ceelaayo iyo ilaa dhulkan aan hadeer joogay in kala hadlayo marka waxaan nasiib darro ah dadka inta leega dhulka inta leeg degan in garashada iyo aqliga aad aragteen ee ay isku daba socdaan Siciid Dani iyo ninkii la yiraahdo Axmed Madow inay yiraahdaan dadkaas aan ku metelna Jubbaland waa la ogyahay magaalada Kismaayo oo wuxuu doono ku diro baqtiistay oo ciidamo ajnabi isagu joogan mooyaane meel uu xukuma jirin Siciid Danina Puntland hadda kooban ee jirta waxaad ogtiin Boosaaso waxa ka jira dhulkan hadda tilmaamay Sool iyo Sanaag iyaga warkooda badaayo ma sheegan karo mana soo hadal qaadi karo aad arkayseen laamiga gaalkacyo iyo u dhaxeeya Garoowe in ciidamadii Puntland ay goosteen markii ay mushahar iyo nafba ka waayeen dalkii oo dhan la xaraashay haday dekad tahay haday maxjar tahay hadii ay xataa korontadii ee dawladii Maxamed Siyaad Barre dhistay Imaaraad baa laga xaraashay waxa meesha loo ham iyo digleeyahayna waa sidii dalka Soomaaliya dekadihiisana Jabal Cali loogu ilaalin lahaa danaha Imaaraadka khayraadka yaalla ee mineralski waxyaalahaasna loo boobi lahaa horta Siciid Dani iyo waxa ay isu daba socdaan Axmed Madow waa inta taariikhda Soomaalidana waa soo bandhigayna yaa ugu horeeyay oo badahan ijaaray ama kireeyay Soomaalida qarnigii 18aad yani waxaan in taariikh bay salka ku haysaa ma aha boobkan iyo iimaan darrada uu Siciid Dani hadeer wada wax isagu ku kooban ma intii burburku dhacay yaa ugu horeeyay oo dekad badaheena kireeyay waa iska siyaasiyiinta aan ehelka nahay deegaanka ka soo jeeda waa aad iyo aad ba dad bulshadaas u nasiib daranta mar walba midba midku ka sii damiir liito oo aad isleedahay dal iyo dad iyo deegaan midna uma danaynayo ba Soomaalidu ka arkaysaa marka waxaan leeyahay dawladda federaalka ee hadda jirtana kalsoonida shacabkay ku waayaysa ixtiraamka ay ixtiraamayso labada qof waxaan leeyahay hadii maanta Siciid Dani iyo Axmed Madow gudaha la dhigo la xidho dawladnimaduna cirka yaadaysa
shacabka Puntlandna banaanbaxyo waaweyn oo ay arrinta ku taageersan yihiin bay dhigayaan annaga aan Puntland ahayna waxaan arkaynaa dawladnimadii inay hagaagayso waxaan baaq u jeedinayaa marka dawladda federaalka oo aan leeyahay dawladnimo inta yar baa ka hadhay caqabad intaas ka hadhay intaasina waa in go'aan adag la qaataa waqtigaas oo kale waxaan tusaale u soo qaadinayaa 1862 madaxweynihii 16aad ee dalka Mareykanka oo Abraham Lincoln la oran jiray sidaas oo kala barsaabada maamul goboleedyadu ay u hagardaameen jiritaankii dawladnimada oo loo murmeero waka de go'aanku ka qaato kala la qaata ma aha dawladnimada iyo jiritaanka ummadnimadu wax la isku baryayo ma dadka territoriska ama danaha dalkooda dalal kale ka doorbidana adduunka oo dhan waa isku xukun waa la dilaa sabab nimankan dharka iyo ka sheekeynaya hadda aad arkaysa hebel dharkii buu soo bedeshay ka sheekeynaya ee garasho halka ka marayso ee kalsooni darro leh Soomaali wax la cuni mayno waa baqayna ee kimis garoow hal iga soo sameeyay war dadka noocaas inay Soomaali ku dhex jiraan waa khalad dawladdu inay eegata laamaheeda amniguna waa khalad ma aha looguma turayo habbeelad Soomaalidu maanta waa ka soo gudubtay waxa weeye dadkani lama jiraan dal Soomaaliyeed iyo dawlad hana qaada federalismkiina dawladda is dhinac yaalay u haystaan oo isku awooda waxa uu maanta ka hadlay Siciidani uu leeyahay taliyayaasha ciidanka xilka laga qaado waa wax laga murugoodo qof kasto Soomaaliya halkiisa ku dhibaysa waxaan mar saddexaad ku celinayaa dawladda federaalka arrinta go'aan adag ka gaadho waa sida ay kulli gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ku matali karto waa sida inta aan ogahay dareenka shacabka Puntland sida ay ku matali kartaa waa inay dadka territoriska go'aan ka qaadato maanta soo booqashadaydan xafiiska Kalshaale Channel waxaan ku soo qaadanayaa anigoo la qaybsanaya ummadda Soomaaliyeed rajada ay ka qabtay shirka wada tashiga doorashooyinka ee nimanka jidiye jihadiidka ahi labadan in ay diideen anigoo murugadooda la qaybsanaya ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ku hanweynaada qarankiina weynuna guuleysanaynaa marxaladan hadeerna kuwa ka xun baynu soo marnay oo aynu ka sabantabaxnay Soomaaliya ha noolaato ilaahay dalkeena ha mideeyo aad iyo aad baan idin mahadinayaa